ayaamaan ugu dambeysay dhalinyartu waxay waajahayaan dhibaato ka haysata sal loo sameeyo YouTube channel professional ah iyo sal loo xaliyo mushkiladda verification code adigoo jooga Soomaaliya in ka badan 100 dhalinyaro ay iga soo codsatay inaan mushkiladan xal u helo maanta waxaan raadin doonaa xalka mushkiladda nala joogi laaya dhamaadka muuqaalkana ha ka ilaawina like share iyo subscribe okay balhan bilowno Okay saaxiibayaal saan u sameeyno YouTube channel professional ah marka ugu horeysa waxaan u baahanahay inaan sameysano Gmail saan u sameysano Gmail waxaan soo furan doonaa YouTube-keena kadibna waxaan tagi doonaa meesha ay ku qoran tahay you ama ay loogadaadu saaran tahay kadibna waxaad ku sii dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay switch account halkan waxa kaaga soo bixi doona akoonada Gmail adiga kuugu jira haddii hore kuugu sameysnayna waxba ku soo bixi maayaan waxa ku soo bixi doona kaliya halka ay ku qoran tahay plus ama accounts meesha ku qoran tahay meesha ayaan plus taasan ku dhufan doonaa kadibna waxay noo diri doonaa checking information oo waxayna weydiin doonaa PIN-ka ama password-ka mobile-kaaga kadib markaan PIN-ka ama password-ka mobile-kaaga ka furo waxa uu si toos ah inoo geyn doonaa marka Google-ha sign-in-kiisu inoo geyn doonaa marka waxaan sameysan doonaa Google-ha create account ma ku dhufan doonaa halkaan ku calaamadiyay kadibna waxaad ka sii dooran doontaa taa ugu sareyso ah ii samee Gmail ani ii gaar ah oo isticmaali karo okay waxaan ku dhufan doonaa taa ugu sareysa halkan waxa uu kaaga soo saaray markaa meeshii aad gelin lahayd magacaaga iyo last name-kaaga okay tusaale ahaan magaca waxaan u bixin doonaa Umayr oo kale last name-kan waxa u bixin doonaa Media waxa meesha ay nooga muuqata inaan sameyn doono YouTube channel loo yaqaano Umayr Media kadibna negastaan ku sii dhufan doonaa si hore noogu sii wado kadibna waxayna geyn doonaa meeshan oo ah basic information waxaad gelinaysaa marka informationka asaasiga ah tusaale ahaan bishaad dhalatay maalinkaad dhalatay iyo sanadkaad dhalatay iyo genderkaaga ma male baa tahay ma female baa tahay okay waxaan ku dhufan doonaa bisha May baan ku dhufan doonaa marka maalintii labaad 2000 waa taariikh iska been aan ku buuxinayno markaan soo gelino taariikhda dhalashada waxaan tagi doonaa meesha ku qoran gender baan ku dhufan doonaa waqtiga hore waxa ku jiray garanayo female iyo male kaliya adana waxay ku soo dareen inta kale dunidu way sii socotaa saaxiibayaal ilaahay noo saalo okay waxaan dooran doonaa male baan dooran doonaa waxaan ku sii dhufan doonaa negastaan ku dhufan doonaa marka kadibna Google waxayna geyn doonaa Gmail address-ka wuxuu ku leeyahay Media Umayr baan ka dhignaa Umayr Media ka dhignaa mise adiga ayaa sameysanaya Gmail address-ka hadda inagu waxaan dooran doonaa ka labaad oo ah Umayr Media okay negastaan ku dhufan doonaa negasti markaan ku dhufano halkan waxay nagu weydiin doonaa inaan ku xidhano strong password ama password adag yani haddaad ku xidhato password-yada 1 2 3 iyo marka wax raaciso password-kaas mid adag maahan waa la jabsan karaa waana lagu tijaabin karaa marka had iyo jeer waxaad doorataa password adag oo xasuusan karto haddii inagu password-kan gelin doonaa oo password-kooda ka qarin doonaa already Gmail waxa laga yaabaa inaan wax kale isticmaalo marka password-kan gelin doonaa saaxiibayaal marka password-kii soo gelino screenshot ka qaado password-kaaga had iyo jeer marka password-ka soo gashato screenshot ka qaado kadibna meel ku note gareyso hadduu ka lumo saad u hesho okay negastaan ku oran doonaa negasta marka ku dhufano dhinacan waxayna weydiin doonaa numberkaaga ayaad gelin doontaa oo hadhow numberkan haddii uu Gmail-ku ka lumo si lagugu soo diro verification code-ka laakiin hadda waan iska dhaafaynaa oo Gmail-kan marka waa mid tusaale ah skip ayaan ku dhufan doonaa kadibna waxa uu inoo generate gareeyay ama inoo sameeyay umayrmedia@gmail.com halka sarena waxa noogu qoray Umayr Media okay next ayaan ku dhufan doonaa markaan next ku dhufano hoos ayaan markaa dhaadhici doonaa oo waxan oo dhan way heshiisiyo aad la gelaysa markaa Google-ha already Soomaalidu ama dadka kale way iska dhaafaan inuu iska dhaafinaa markaa agree baan ku dhufan doonaa oo waxyaabaha xagga hore kugu soo sheegay waan aqbalayaa weeyaan okay Google service wuxuu noo wareejin doonaa si uu inoogu sameeyo markaa Gmail-kii already Gmail-kii way noo sameeyay waana uu dhaxgeeyay Gmail-ku waa kan waa Umayr Media haddaba Gmail-kii waan haysanaa oo saad aragto wuxuu dhaxgeeyay platform-kii markaa YouTube-ka sidee baan Gmail-kan ugu sameysan lahaa YouTube channel okay waxaan iman doonaa meesha ay ku qoran tahay you markaan you ku dhufto halka marka waxaad ku arkaysaa create a channel kadibna waxaad ku dhufan doonaa create a channel ba ku dhufan doontaa halkan marka wuxuu kugu siin doonaa informationka ku saabsan YouTube channel-kaaga haddaad loogada ka bedelayso
iyo haddaad magaca ka bedelayso halkan ayaa kugu siin doonaa tusaale ahaan oo kale Umair Media magaca inooga dhigay magaca Gmail-ka ku soo samaysanay haddaan markaa magacaas ku cajabin marka halkan baad ka bedelaysaa oo wax kale ayaad ka dhiganaysaa already hadda tijaaban u soconaa Umair Media iskaga diin doonaa loogadan halkan baad ka soo saaran doontaa marka dhinacan wuxuu ku geyn doonaa inaad hadda sawirto loogada yani inaad wajigaaga sawirto soo dhigato mise inaad gallery-daada ka soo saarto okay gallery-daada dooran doonaa marka waxaan ka soo saaran doonaa looga markaa macquul aan ka soo saaran doonaa tusaale ahaan tan oo kale sidaas waxaan ku dhufan doonaa meesha ay ku qoran tahay save as profile picture already marka inoo wareejin doonaa waxaan inoo dhigi doonaa profile picture kadibna waxaan ku dhufan doonaa meesha ku qoran tahay create a channel hambalyo waxaan ku guuleysanay inaan samayno YouTube channel oo halkan waxaad ka aragtaa inuu noo samaysmay Umair Media inoo samaysmay haddaba waxa isweydiin mudan sidee baan YouTube channel-kaygan aan ugu furaa verification code waxaan haddaba samayn doonaa inaan YouTube channel-kan verified garayno verification wuxuu kaa caawinayaa inaad soo dhigto muuqaal dheer oo 15 minute ka badan iyo markaa inaad custom thumbnail soo saaran karto muuqaalkaaga iyo markaa inaad live stream soo geli karto iyo markaa feature badan buu ku siin doonaa okay waan ka soo bixi doonaa markaa YouTube-ka waan ka soo bixi doonaa already shaqadiisa halkaas inaga dhamaatay waxaan iman doonaa Google Chrome-ka iman doonaa Google Chrome-ka waxaan ku qori doonaa YouTube Studio Desktop ama linkigiisa ayaan kuu soo dhigi doonaa YouTube Studio Desktop san ayuu kugu soo bixi doonaa wuxuu kaa codsan doonaa inaad app-ka la soo degto YouTube Studio-ga app-ka lama soo degino kaliya waxaan ku dhufan doonaa Continue to Studio markaan Continue to Studio ku dhufano already waxa uu inageyn doonaa YouTube Studio Desktop-ka oo kale mid u samaysan okay hadda waxay noo saaran markaa YouTube channel kale ay noo saaran Zoom baan soo oran doonaa inagoo labadeena gacmood isticmaalana kadib loogadaasaan kasii tagi doonaa waxaana kusii dhufan doonaa switch account baan ku dhufan doonaa marka switchka ku dhufano wuxuu kuu soo saarayaa akoonnadaadii halkan ayaan kasii dooran doonaa marka Umair Media kasii dooran doonaa marka already Umair Media ayuu inageyn doonaa platformkiisii halkan waxa kaaga muuqata inuu ku leeyahay ku soo dhawow YouTube Studio-ga continue ayaan ku dhufan doonaa kadibna waxaan zoom ku soo oran doonaa inagoo labadeena gacmood ku soo dhaweyn doona inaan tagno markaa calaamadda settingska dhinaca kaaga muuqata calaamadda settingskan tagi doonaa kadibna waxa halkan kaaga soo bixi doona markaa waxyaabahan hore ugu soo sharaxnay muuqaalka 9 settings oo muhiim tahay inaad furato haddaad doonayso markaa inaad muuqaalka soo daawato daawo ayaan kugula tali lahaa wax badan baad ka faa'iideysaa okay waxaan tagi doonaa meesha ku qoran tahay channel baan tagi doonaa markaan channel tagno halkan waxay nooga soo baxay markaa basic information iyo advanced settings iyo future eligibility kadibna waxaan tagi doonaa xabadda u dambaysa marka halkan tagno halkan waxa kaaga muuqda markaasaad aragtaan saddexdii feature ee hore u soo sharaxnay ahaa standard intermediate iyo marka advanced hadda marka waxaan u jeednaa inaan furano intermediate oo markaa ina siinaya verification code-ka iyo markaa custom thumbnail-ka okay waxaan ku dhufan doonaa falaadhaas aan soo jeedi doonaa korna waan u riixi doonaa halkan wuxuu ku leeyahay haddaad furato markaa verification code-kaas waxa uu markaa lagu siin doonaa inaad soo geliso markaa muuqaal dheer oo ka badan 15 minute iyo markaa inaad soo geliso custom thumbnail iyo inaad soo gasho markaa live stream okay waxaan ku dhufan doonaa verified phone number already waynu iska bedeli doonaa waxaana uu nageyn doonaa meeshan waana meesha markaa dhalinyartu mashaakil badan ay kaga qabsato talaabada koobaad ee qaadayso waa inaad country-gaaga select tiraahdo hadda waxa inoo saaray waa Mareykanka waan ka bedeli doonaa waxaan ka dhigi doonaa wadankeena markaa hadda waxaan dooranay Soomaaliya ayaan dooranay kadibna halkan ayaan gelin doonaa numberkeena hadda anigu waxaan gelinayaa numberka waa inaad ka bilowdaa +252 waayo waa koodhka Soomaaliya lagu garanayo kadibna halkan ayaad ku xigsiin doontaa numberka ay gelinaysaa marka next ayaad ku dhufan doontaa already anigu waa ii qaatay anigoo 252 isticmaalaya waa uu ii qaatay markaa numberkii koodhkiina saad aragtaan waa uu soo diray kadibna copy ayaan ku dhufan doonaa kadibna halkan waan best ku oran doonaa okay already anigu waxa igu yiri for mobile-kaaga waa lagu verified gareeyay oo anigu waa uu ii aqbalay laakiin haddii ku waajahdo markaa mushkiladda inaad markaa verification numberku una markaa ku shaqeyneynin waxaad sameyn doontaa markaa tilmaamahan soo socda mushkiladda verification code-ku waa mushkilad ku timiday Google-ha
kaliya kuma koobna Soomaaliya dhalinyartu waxay u haysataa in Soomaaliya laga xidhay hadduu Google ku soo diri waayo koodhka ama uu ku soo qoro numberka aad gelisay waa qalad raac tilmaamaha soo socda shirkadda Google waxay leedahay haddii lagu soo diri waayo koodhka waxa laga yaabaa in shirkadda aad isticmaalayso sim cardkeeda aynu Google aqoonsanayn marka Google waxa uu ku soo dirayaa numberka aad gelisay waa qalad isku day inaad bedesho shirkadda aad isticmaalayso tusaale ahaan waxa uu ka diiday shirkadda Somtel u wareeg shirkadda Hormuud ama Telesom halka labaad aad ku xalin karto mushkiladda waxa laga yaabaa numberka aad u isticmaalayso verification code-ka inaad ku samaysatay YouTube hore Google waxa uu ogol yahay in numberka lagu sameeyo laba YouTube channel oo kaliya wixii ka badanna waxa uu aqoonsanayaa marka number aan jirin koodhkana kuma soo dirayo halka saddexaad waxa laga yaabaa in koodhka hore uu kugu soo dhici waayo marka isku day inaad doorato optionka call me-ga si lagu soo waco markaaba hadday intaan soo sheegnay ay xalin waayaan mushkiladda isku day inaad la xiriidho qof saaxiibka ah ama ehelka ah oo wadanka ka baxsan oo ka dalbo inuu ka caawiyo mushkiladda verification code-ka si lagu soo fasaxo marka saaxiibayaal maanta muuqaalkeenu dhinaca inoogu jeegi doonaa waxaan filayaa inaad waxuun ka faa'iiday fadlan la dhaaf subscribe-taada waayo waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan sii joogtayno dhalinyartana waxyaabo badan aan ka caawino waxay kaga sii tagayaa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh